Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh walaalaha garbahayga oo kusoo dhawaada wehelkii dunida iyo waxtarkii bulshada aniga waxaan ahay Xafsa YouTube-ka naga daawanaysan waa Xafsa channel ala barnaamijkan waxaa idin soo gudbisaa isla aniga waa walaashin Xafsa Sayid soo dhawaada meel walba aad joogtaan waxaan Allah subxaanahu wa tacaala idinka baryaa cimri dheer cibaado subayno Allah idin siiyo insha Allah waxaan rajeynayaa inaad caafimaad qabtaan aniga waan fiicanahay alxamdulillah waxay inoo soo socday kitaabkeeni imtixaanaha ahaa ee la magac baxay baro 100 xadiis hase yeeshee intaan u gudagalin darsigeeni caawa haddii ay tahay marka ugu horeysay aad channelka soo booqatay fadlan subscribe saar haddii aad hore noo joogtaan like saar u share garay asxaabtaada nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu dhahay waxaad naftaada la jeceshahay la jeclo walaalkaaga kusoo dhawaada maanta iyo muuqaal cusub iyo darsigeeni 43aad insha Allah bismillah عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee wuxuu dhahay Allah subxaanahu wa tacaala ma fiiriyo sawiradiina iyo maalkiina laakiin wuxuu fiiriyaa qulubtiina iyo acmaashiina Allah naga dhigo kuwii acmaasheena wanaajiyay iyo qulubteenaba waxaan rajeynayaa inaad wax badan ka fahanteen haddii aan mar labaad idinku celiyo nabiga nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee wuxuu dhahay Allah subxaanahu wa tacaala ma fiiriyo suwaradiina iyo maalkiina laakiin wuxuu fiiriyaa qulubtiina iyo acmaashiina waxaa wariyay xadiiskan rawaahu muslim waxaan rajeynayaa inaad wax badan ka fahanteen aad u sii share garan doontaan asxaabtiina guud ahaan halkan ayaan kusoo gabagabeynayaa muuqaalkayga maanta waad ku mahadsantahay haddii aad subscribe saartay sidoo kale waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkayga wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh